السلام عليكم خيارت soo dhawaada anigoo goldeena meeshaan waxa ila fadhiya Skanovic ya marka gameemka isbuuca dhexdiisa la ciyaari doono waa game Premier League oo adag gameemku ma kala dhacaan gameemku ugu soo maalinta Talaadada ah Man City iyo Wolves Man City baa home ah marka gamekan game adag waay runtii mataqaanaa saddex kulan u dambeysay wada dheelaan Wolves laba game badasay hal game-na Man City صح habeen dambe waxa lagu dheeli doonaa Etihad raggaas Wolves-na hadda waa daran yihiin waa aragtay difaac ay fariistaan markay koonta soo qaadaan haddana teamkan Man City marar badan ay saa ku sameeyeen oo kaga badiyeen game-ka hadda ku soo sheegay marar badan baa gadalmay wiil marar badan baa ga badiyeen waxaana halis ah wiilka Traore la dhaho mataqaanaa lambarka 37 wata wiilkaas waa wiil halis ah inkastoo istaraakooda fiicnaa uu maqan yahay Jimenez istaraaka aan caadi ahayn baa injury ka galay injury aga maqan saa darteed bay u dhibaatoonayaan Man City haddii loo fiiriyo hadda formka ku socoto iyo si u dheelayso waa adag yihiin looma geli karo baryahan looma geli karaa fiicashadeedu waa adag tahay weerarkeeduna waa adag hadaan qiyaasno intay ku dhamaan doonto aniga waxaan isleeyahay Man City waa badinaysaa صح Man City waa badinaysaa waxaan ku badinaysaa Man City 3-0 anuu 2-1 aan leeyahay Man City aan u saaray haddana aan fiirino kulanka Crystal Palace iyo Man United Crystal Palace gurigeeda lagu ciyaarayaa Crystal Palace waxaa dhihi lahaa aniga Crystal Palace formkeeda ma fiicna hadda maalmahan dambe game-kii lagu furay Premier League Crystal Palace 3-1 ku adkaatay Man United waxa waay team awayga ku fiican awayga si fiican u dheela marka taqaana gurigooda on bay mataqaana xaga ku liitaan maahane awayga maalmahan waa ku fiican ka u maleynaysa intay ku dhamaanayso game-kaas 2-1 tan waxa ku badinaya Man United haddaan fiiriyo anigu waxaan leeyahay mataqaana Man United baa 1-0 ku badinaysa awood badan ma jirto hadda runta hadii laga fiiriyo Man United istaraakooda Cavani injury waay laakiin game-kaas inuu soo laaban doono ma ogin yaa Ole wuxuu yiri mataqaanaa waa la nasinayaa game-ka camal inuu soo laabto dhici karta laakiin ninku waa nin odaya inuu isku bilaabin baa dhici karta aan socono game-kan u galno Fulham iyo Tottenham guriga Fulham baa lagu dheelayaa guriga Tottenham bay u dhacaysaa Tottenham waa iyadii 4-0 maalin dhaweyd ku badasay marka game-kaas maxaa dhihi lahayd game-kaas game waxa waaye adag ani ahaanteeda game waxa waaye Fulham ay mataqaanaa Benoni ay dheerayso Fulham tiimamka kale ma ahan oo mataqaanaa Benoniga iska bugeenaya Fulham waxa waaye team Benoni si fiican u dheelay sharaxaya iyadii Brighton iyo rag waxa waaye Benoniga ka haysanaa game-ka ugu adag ee isbuuca dhexdiisa la wada sugayo waa Liverpool oo Chelsea u dhacaysa Anfield lagu ciyaaraya Liverpool eedo lisleeyahay way ka taalaabay habeen dhabeed 2-0 Sheffield aga badisay rag waxa lisleeyahay waa soo laabteen laakiin Chelsea oo ayadu suu coachka cusub u qabtay oo Tuchel laga badin oo difaacashadeedan adag tahay goolba inay dhaliyaan ha ku adkaatee maxaad ka leedahay marka aniga waxaan dhihi lahaa maxaa la game-kan game adag waay game-kan game la ismaraayo mu eka صح maxaa la game-kan game mataqaanaa dhulka ku dhacayna ma aha aniga sa ila tahay oo toore sa u maleynayo in laga badinayo Liverpool oo Chelsea ay badanayso Chelsea 2-1 ku badinayso game-kaas waxa uu sheegtay game adag waay aniga 2-0 Chelsea baa ku badinaysa score prediction keen waa dhiibanay marka maxaad ku soo xiraysaa waa intaas iyo nabadgelyo akhyaarta share like comment xaqiina inta idinkaan ilkaga baahan yahay annagana waxaan ilkaga baahan yahay inaan nila socodsiino wixii news iyo mataqaanaa sports ciao